xubinta xogta daahsoon waa xubinta xana inoo noqon doonta oo aad kala socon doontaan channelkayga Maxamed Cabdirasaaq Tuleto. maantana waxaan ku bilaabeynaa xogaga daahsoon ee kooxda Manchester United. Manchester United waa koox Ingiriis ah oo fadhigeeda uu yahay garoonka Old Trafford ama maslaxadda riyada. waa mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub. maantana waxaynu ku ogaanaynaa 5 xog oo daahsoon oo ku qotanta kooxda Manchester United. aynu ku bilowno. Manchester United waa kooxda ugu xarashada badan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska tan iyo markii la bixiyay magaca 1992 waxaana ay ku guuleysatay 13 jeer. Manchester United waa kooxda kaliya ee tan iyo markii la bixiyay magaca horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ku guuleysatay 3 jeer oo xiriir ah. waxay samaysay 1998-99 xilli ciyaareedka kale 1999 2000 mar kale ay haddana Manchester United rikoorkeedii ay jebisay oo ay dhigtay rikoor kale oo cajiib ah oo ay ku guuleysatay haddana 3 jeer oo xiriir ah. waxaana ay dhacday xilli ciyaareedkii 2006 2007 2007 2008 waxaan kaloon ka ogaan karnaa Manchester United waa kooxda ugu guulaha badan tan iyo markii la bixiyay magaca horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waxaana ay guuleysatay 629 kulan. Manchester United waxay noqotay koox guuleysatay 19 kulan ay ku ciyaartay garoonkeeda 18 ka mid ah. waxaana rikoorkaasi ay la wadaagtaa kooxaha kale ah Chelsea iyo Manchester City. haddaba aynu ogaano xilli ciyaareedkii Manchester United ay ku dhalisay garoonkeeda goolashii ugu yaraa waxay dhalisay 10 gool. wuxuuna ahaa xilli ciyaareedkii 2006 2007. waa qaybta koobaad ee xubinteena xogta daahsoon oo tixana inoo noqon doonta. kala soco channelkaan, fadlan subscribe saar, la garay, sidoo kale ka bixi comment si aad noo dhiirigeliso. waa diyaarintii Maxamed Cabdirasaaq Tuleto.